السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيرت كحرين channel كان أحمد أرقني كوسو دوادا مقال عصب maanta waxaynu ku hadli doonaa gumeysiga casriyeysan ee qarnigii la soo dhaafay iyo qarniganba. waxaan kaaga hinaa shaqo fiican wadamada horumaray. gumeysiga casriyeysan waxa uu ka dhacay dunida oo dhan. waxa laga ganacsado waa dumarka iyo carruurta yaryar. dadkaasi qaarkood waxaa loo kaxaystaa inay shaqeeyaan, askari noqdaan, inay jirkooda ka ganacsadaan, amaba in la gato xubnaha jirkooda. badanaa arrintan waxay u badan tahay qaaradda Aasiya, gaar ahaan Hindiya, Bakistaan, China, Thailand, Cambodia iyo Japan. sidoo kale waxay ka dhacdaa qaaradaha Afrika, Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. dadkaas ayaa mararka qaarkood laga kaxeeyaa wadamadoodii waxaana la geeyaa wadamada hantida leh. dumarka ayaa badanaa loo isticmaalaa inay jirkooda ka ganacsadaan iyaga oo lagu qasbayo. wiilasha yaryar ayaa badanaa loo isticmaalaa inay noqdaan askar. siyaabo badan ayaa u sahasha dadkaasi wax gumaysanayay inay gumaystaan qof. badanaa dadka maskaxda leh waxay u isticmaalaan fikrado ah inay geen doonaan wadamada horumaray oo ay welibana siin doonaan shaqooyin fiican. balse markii la kaxeeyo qofkaasi ayaa loo bedelaa arrintii oo lagu shaqaystaa. sidoo kale in lasoo duubto qofka amaba in dumar waaweyn loo isticmaalo inay soo qanciyaan gabdhaha yaryar iyagoo been u sheegaya ayaa fududaysa sida ay gumaystayaashu u gumaystaan qof. haddaba arrintan ayaa sidoo kale ka dhaca wadamada faqriga ah, gaar ahaan Afrika amaba Asia. iyagoo qofka loogu sheekeynayo in nolol fiican la siin doono ayaa dhalinyarta ragga ah badanaa loogu shaqaystaa si ay askar u noqdaan amaba howl ay u qabtaan iyagoo aan wax lacaga lagu siinin. waxaa xilligan la sheegaa in gacanta lagu hayo in ka badan 20 milyan oo qof kuwaasoo loo isticmaalay addoon ahaan balse laga soo badbaadiyey. dadkaasi la addoonsanayo badanaa waa dad aan awood lahayn oo rag uma badna gumaysiga, balse dadka wax gumaysta ayaa u badan rag. waxa ay ku dhahayaan waxaan kaaga hinaa shaqo fiican wadamada horumaray taasi oo aad ka heli doontid, balse waa inaan haynaa baasaboorkaaga. taasi waa sida ay gumaystayaashu ula hadlaan qofka ay rabaan inay gumaystaan. wax walba waa ay ka ballan qaadaan, balse marka la keeno waddanka kale oo uu baasaboorka dhiibo ayaa la siiyaa shaqo aan hayn tii loo ballan qaaday. dadkuna waxba ma sameeyaan maadaama ay waddanka ku soo galeen iyaga oo aan sharci wadan. haddii aan tusaale u soo qaadano addoonnimada lagu khasbo dadka, waa midda shirkadaha jukuleedku sameeyaan ay u adeegsadaan carruurta ay xoogga ugu shaqeeyaan, gaar ahaan wadamada galbeedka Afrika. si fiican ayaa u jecelnahay jukuleedka, balse xadgudub badan ayaa loo adeegsadaa carruurta suugiisa alaabta laga sameeyo oo ay wadamadaasi qani ku yihiin. arrimahan maalba ayay nagu dhacaan haddii aan nahay Soomaali, annaga oo ka daba ordaynay inaan tagno Yurub ama Maraykan. sidaas darteed ayaan aaminaa dad raba inayna tahriibiyaan kadibna waddada nagu iibsadaan sidii inaan addoomo nahay. dadka qaarkood ee mara wadamada Liibiya iyo Masar waxay la kulmaan addoonnimo kuwii ugu xoogsanaa. weliba gaar ahaan gobolka Sinai ee dalka Masar waxaa ka dhaca in dadka mara gobolkaasi jirkooda lagala baxo xubnihoodii, waxaana ay weliba ku dhacday nin iyo xaasiisii iyo weliba carruurtiisii kuwaasoo lagala baxay xubnahoodii ugu muhiimsanaa kadibna la talay oo la iska tuuray. haddaba maxaanu rabnaa inaan addoomo noqonno annaga oo ah xor? weliba wadamada kale ee adduunka waa wax lagu khasbay, balse haddii aan nahay Soomaali waan ka duwannahay maxaa yeelay annaga ayaa badanaaba u tagna. waxaa jira dhacdooyin badan oo ka dhacay magaalooyinka Soomaalida ee bariga Afrika, balse waa aan joojin karnaa haddii aan ka taxadarno addoonnimada aan isku khasbayn oo aan xoogga lagugu soo kaxaysanayn. waxaan filayaa inaan waxaan kaga faa'iideeyo mawduucani maantay. intaan ku kulmi doono mawduuca lamida waxaa idinkaga tegay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.